Sarreey guutooda waa Yuusuf Raage, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kormeeray jiidda hore ee ciidanka xoogga dalka ay ku sugan yihiin. Taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa kormeeray xerooyinka lambar 50 iyo lambar 60 oo ay ku sugnaayeen cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka, kuwaas oo loo carbiyay in ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ka xoreeyaan deegaanada farakutiriska ay kaga dhuumalaysanayaan gobolka Shabeellaha Hoose. General Odawaye Yuusuf Raage ayaa u kuur galay xaaladda ciidamada oo ay ugu horeyso raashinka iyo hoyga ciidamada, soona kormeer indhayn ah ku sameeyay guud ahaan xerooyinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Africom, kuwaas oo ku sugnaa deegaanka lambar 60, isagoona ku amaanay shaqada ay ku guda jiraan.